filimkan wuxuu ku bilaabanaa suuwi waa gabar yar waxana ka shaqeynaysaa kalaabkaasna waxa ku qasbay ka shaqeyso hooyada si lacag uga hesho ugu dambeyntiina nin meesha cabsanaya wuxuu ku qasbaya qamriina cabsi xoog leh ayuu qamriga afka uga shubaya wuxuu dhaaya waa inay la joogtaa laakiin iyadu waa ay ka soo cararaysaa saseeta kama haraya banaanka ay uga doo imaanaya laakiin waxa imaanaya June oo wiil lacag leh run ahaantii isaga ay kordhacay badbaada yeelada meesha ay ku soo xaysaa subax markay soo kacdo waxa arkaysaa June iyadoo la jiifto sayday una xaysaa meesha dhan waa isaga soo cararaysaa iyadoo la yaabo waxyaabo dhacay bilooyin ayaa ka soo wareeganay waxaan ogaanaysaa inay uur leedahay ugu dambeyntii aad ay walwalaysaa hooyadana aad ay u nacabtaa walaalkeed ay ka jeceshay xitaa mararka qaar raashinka ay u diidaa oo waxa leedahay waad ciilaysaa hadii aad ciishan cid shaqo ku ogolaanaysa malan anaga intee lacag ka keenayna wiilkayga oo kaliya cuntiisana adigana waa inaad soo shaqaysaa waxa la dhahay hotel qaali waa inaad geysaa cabitaan hotelka cabitaanka markay geysana waxa la kulmaysaa Jiwi asagana isla markaa oo arka aad ay la yaabay wuxuu xasuusana habeenkooda dheera wuxuu leeyahay gabadh yar ayaa culayska maxaa u qaadaysaa iyadana waxa la laatay 2 sano ayaa jira aniga gabadh yar miyi asagana wuxuu la yaabaya farqiga cimrigooda waxay maxay la 18 sano ayuu ka weyn yahay ugu dambeyntii wuxuu leeyahay habeenkaas waxa dhac mas'uuliyadooda aniga ayaa qaadayo iyadana waa ay farxaysaa waxay go'aansanaysaa inay u sheegto inay uur leedahay laakiin isla markiiba waxay ogaanaysaa ninka hotelka iskala qof kale noohin oo asaga yahay hadalkeedana dib ay la laabanaysaa kadibna way dhacaysaa asaga ayaana qabanaya lambarka telefoonkiisa ayuu u qoraya wuxuuna dhahayaa wuxuu u baahnaa aniga waa inay soo weydiisaa caawiisana wuxuu sheegayaa lacagta cabitaanka lacag dheeraad inuu siiyo iyadana lacagta ay qaadanaysaa si cunugeeda bir kamaal ugu meel mariso lacagta ayayna qarsanaysaa laakiin hooyada ay ogaanaysaa dharbaaxa ayayna ku dhufanaysaa maaniga lacag iga qabsanaysaa ay leedahay markay soo baxdana banaanka ay ku soo xisay Jubi oo dabagalaya ayana soo qaaday isbitaalka ayuu si toos u keenaya dhakhtarkana wuxuu sheegay raashinka in waxyaabo qaldan loogu dari jiray yacni waxyaabo ay ku soo xirto isagana waa ku lulay maadaama gabar yar ay tahay gurigiisa ayuu keenaya markay soo kacdana wuxuu dhahayaa in cunto ayaan ku diyaarnaa adiga dharka waa inaad soo badashaa maxaa cusub ayaan ku soo gaday waana markii ugu horeysay aragta qof iyada daneenaya sidana uga taxadaraya dharkeeda ayayna soo xiranaysaa kadibna wuxuu ugu wacay baby girl soo fadhiiso iyadana hadalkaas aad ayay oo la yaabaysaa wuxuuna dhahayaa dhakhtarku wuxuu ii sheegay cuntada xoogaa sun in lagu daray ee dhibaatada jirta maxaa iyadana waxa dhaysaa waxyaabahaas wax ka jira malahan yacni waalidkeeda ama hooyadeed marnaba inay ka shakiso diyaar oo maba ahanbo asagana wuxuu dhahaa naftaada inaad ka taxadarto ayaan ka cabsanaya kadibna waa uu soo kaxeynaya waxa leedahay in mar dambe inaan wada kulana maribiyo iyada waxay ka cabsanaysaa uurka hadduu ogaado inuu iska soorid oo dhaho iyo dhibaato inuu gaarsiiyo gurigeeda ayayna si toos u soo aadaysaa mar dib dambe inay soo raadsanaa isku dayna ayay dhahaysaa waayo ayuu leeyahay dhibaato ma lahan kadibna waa uu iska fasaxaya iyadana aad ayay la yaabay waxyaabaha ay sameynayso kadibna hooyada ayay u imaanaysaa hooyadana waxay leedahay gabadha cuntada ku diyaariyay mar walba cuntada way u diidi jirtay waxayna u malaynaysaa hooyada mar kale in dib u soo jeclaatay maadaama cuntada ay u diyaarisay laakiin maamada qiyaana ay wadato suuhina meesha ay ku soo xaysaa isla markii suuhi ay soo xadana waxay u keenaysaa nin si ay ninkaas uga gadato suuhi ninka ay soo kaxaysanaya iyadana waxay isku dayaysaa ninka inay ka soo baxsato kadibna masjid ay jiin u diraysaa oo waxa leedahay badbaadi isla markiina meesha ay u imaanaya asaga ayaana ka soo gaaray sida uu wadana isbitaalka ay si toos ah u geenaya dhakhtarkana isbitaalka ay si toos ah u geenaya dhakhtarkana wuxuu sheegay gabadha inay uur leedahay jiina aad ayuu ugu farxaya markii uu ogaado gabadha inay uur leedahay wuxuu dhahayaa dhibaato ma iyadana waxay ka cabsanaysaa uurkan waa ka soo xaaqaya inuu dhaay waxyaabo lamida laakiin asaga wuxuu dhahayaa aniga aaba mas'uuliyadiis ku filayaan noqonaya adiga cunugayga mas'uuliyadooda aniga ayaa qaadayo wuuna soo kaxeynaya wuxuu dhahayaa cunugayga bilaa sharci inuu noqdo ma ogolaanayo sawirada arooska ayaa diyaarsanayna si arooskeena gordhow u dhaco sawirada ayayna soo wada galayaan kadibna waa uu soo kaxeynaya oo gurigiisa ay si toos u keenaya iyadana waxay go'aansanaysaa cunugeeda si ay u badbaadsato inay familkeeda ka go'do kadibna asaga ay soo raacdo waayo waa qof kaliya oo badbaadi karo suuhina sida ilmiyo kale ay gaariga ku seexanaysaa Jooni waa soo kaxeynaya kadibna sariirta ayuu keenaya wuxuu dhahayaa mar walba inaan ka taxadaro aniga ayaa ka balan qaadayo ugu dambeyntii iyada ayuu fiirinaya kadibna naag shaqaalaha wuxuu ku amraya inay ka taxadarto labiskeeda iyo waxa cunaysa iyo waxa cabayso mar walba inay ogaato subax markii ay soo kacdana waxay u soo deganaysaa si ay u soo qoraacato laakiin wuxuu arkaya wax kaba inuu soo gadin iyadana kaba la'aan ay tahay wuxuuna dhahayaa aniga ayaa ku xambaaraya kadibna waa uu xambaaraya wuxuu leeyahay ilaa kaba laga soo gaday meel alla meesha rabtid aniga ayaa ku qaadaya oo sidan ayaa ku xambaaraya ugu dambeyntii saaxiibadeeda ay soo baxaysay banaanka wada aadaan iyadana way ka ogolaanaysaa banaanka ay soo aadaysaa laakiin nasiib xumo waxa helaya ninka hadda kor hooyadeed ay ka gadatay ninkaas ayaana xoog ku wadanay laakiin saaxiibadeeda Jiina ay wacaysaa si ay ugu sheegto waxyaabihii ku dhacay Jiina waa soo carray laakiin gabadha asaga jacada ayaa hadlaysa asagana way iskeen tiraya iyadana guri hooyada ay ku soo ordaysaa si ay u badbaadiso hooyadii walaalkeedna waxay dhahayaan adiga waxa bataabo nacalad gurigeena ku soo dhacday yacni marabna inay halkan sii joogto ninka ayaa ka gadanay ninka waa inaa raacdaa hooyadna waa ay garaacaysaa walaalkeedna waa uu garaacaya laakiin isla markii guriga Jiina ayaa imaanaya iyadoo sida loo garaacay asaga ayaana ka soo gaaray wuxuu dhahayaa yiristeed inay dhibaato soo gaarto ma ogolaanayo aniga ayaana si dhaw u guursaro goordhow xaaskayga mustaqbalkaaga waay cid dambe intay u soo dhawaatana kulligeen xabsi ayaa idin wada dhigaya cidoo dhan waa ay la yaabaan hadallada uu ku hadlayo si dhiiran ayuu wuxuu ku dhahayaa aniga qofka ay si fiican u barta maamadan afka ay kala taagaysa kadibna waa uu soo kaxaysanaya wuxuuna dhahayaa inta aniga kula joogo inay qof dhibaato ku soo gaarsiiso lagama yaabo adiga iyo cunugeygana aniga ayaa
aniga idin ilaalinayo maalinta basirta ay ku fikraysaa waxaan dareemaysaa jiwi inay jacayl u qaaday waxaan go'aansanaysaa guur xalaal ah oo dhaba inay la gasho laakiin waxay arkaysaa inuu guursado gabar mar dhow asaga qaraabadiisa ah waxaan dheesay cunug dartiisa miyuu kula joogo oo naaqal miyuu guursanawa maseer ayaa qabanaya waxaan go'aansanaysaa shaqo inay raadsato laakiin jiwi ayaa ka hor imaanaya maxaa sameynaysaa ayuu leeyahay gacalsideeda waxaan leedahay aniga mudan shaqo ayaan raadsanaya wuxuun dhahayaa ninkii mustaqbalka ama gacaliyay waxa doonto igu wac laakiin haydin aniga mudan iyo wax lamida iyadana cabsi ay dareemaysaa asagana wuxuu leeyahay adigoo kaliya ay aniga ila qof kale tan inuu ila hada laga mayaabo ugu dambeyntiina wuxuu dhahayaa xaflad ayaa la dhigi rabaa yaani xaflad bandhiga dahab ayaa lagu soo bandhigaya dahabkaasna wuxuu u baahan yahay hooyadiisna u iibiyo si hooyadiisa uu geeyo wuxuuna soo kaxaysanayaa saaxiibadiisa si dadka dhan ay u ogaadaan wariyaasha dhan wax dhahan gabadhan yaaba asagana wuxuu dhahayaa gabadha mustaqbalka guursara waay saaxiibadiisana meesha ay ka maqlaysaa wax walba waxayna xanaaqaysaa ugu dambeyntii dahabka markii ay aragto suubi waxa la dahabkan waa mid feega yaani dahabka saxda ah marnaba ma aha asagana waa gabadha mustaqbalka guursara waay saaxiibadiisana meesha ay ka maqlaysaa wax walba waxayna xanaaqaysaa ugu dambeyntii dahabka markii ay aragto suubi waxa la dahabkan waa mid feega yaani dahabka saxda ah marnaba ma aha asagana waa ula yaabaa dahabka ma kala taqaan sidoo ku ogaatay oo dhahaya hadalkeedana ma rumaysanayo ugu dambeyntiina meel dheer ay ka fiirinaysaa saaxiibadiisa iyadoo aad maseersan suubiina waxa aniga hurdo ay hayso kadibna xamlada dhexdeeda ayuu ku soo xambaaraya dadka oo dhan uma jeedo ugu dambeyntii waa soo kaxsanaa dadkan aad ay oo la yaabay gaari ay soo saaraya wuxuuna go'aansanaya inuu soo dhawaado maadaama gacalsiis ay tahay laakiin gabadha asaga jeclad ayaa imaanayso aad ayayna uga maseeraysaa oo waxay leedahay naagta xunta doqonta maxaa kugu kalifina u soo dhawaato wuxuuna dhahay adiga wax dan oo kale meel jirto yaani wax jacayl oo ku qabo ma lahan saaxiibadiisa jaakad u xiraaya halka in asaga tagtay ayaa ku wanaagsan suubiina waa ay maseeraysaa oo waxay u maleynaysaa maadaama ay wada hadlayaan iyadoo muraayad waxba kama maqlayso labadooda xiriirna ka wada dhaxeeyo subax markay soo kacdana timaheeda asagoo ku ciyaaraya arkaysaa weyna iloobaysaa maseerkaas iyada haayay waxaan dhahaysaa dahabkii hooyada sida ka yeeshay meesha dahabka lagu fiiriyo ayaan geynayna ayuu dhahay si hadalkaaga u soo rumaysto ugu dambeyntii ninka wuxuu sheegay dahabka mid feega inuu yahay dahabka saxda ah oo ahayn lacag raqiisan oo joogo balse si lama filaana heli ayaa meesha ku soo galayso kadibna suubi ayay ku dhiga hadlaysaa oo waxay leedahay ninka inuu koroomiya ama lase waqti yar ayuu kala qaadanaya xaaska dhabta uu guursanaya waa aniga waxdan uu ka leeyahay haba yaraatee ma jirto iyadana aad ay hadalka soo xumaanaysaa kadibna waa soo kaxanaya juuwi wuxuu dhahay suubi nakeen naagta in la hadasho looma baahno ugu dambeyntii guriga ayuu keenaya wuxuu dhahay adiga jaamacadda ay soo dhigto Soomaa haayela jaamacadda ay soo dhigtay la shahaadooyinkii hooyo ay hayso waxbarashadana dhameystirfan iyo meesha ogolaanay asaga wuxuu leeyahay waa inaad wax barata iyadana wax islaada maadaama aad wax baranin waa uu ka yaqsiyoonaya laakiin isaga waxyaabo niyadaada ku jira iska dhaaf ayuu dhahay caloosha ayuu gacanta ka saaraya wuxuu leeyahay adiga amiiradeeda ayaa tahay cunugeyga adiga wax walba aniga leeyahay adika ayaa iskale markuu rabo inuu soo dhawaado telefoon muhiim ah soo dhacay telefoonka ayuu qabanaya kadib subax markay soo kacdo waxa arkaysaa akhbaar xun oo internetka laga soo dhigay yaani waxa la dhahayaa nin ay ur yeeltay oo gabar yara kadibna naagta jeclaa ay ka qaadatay waana gabar xun hooyad ayaan soo bacayso in uu hanjabayso oo ku caabaysanay hadii kale hada guriga igu imo ay leedahay kadibna guriga ay si toos u soo aadaysaa hooyada ay u imaanaysaa hooyadna waxa leedahay kaw ayaan kaasina hadad lacag isii weyso waana ku caabaysanay gabar musiibada aniga ma waxa ku soo kornaa inaad kaliya ii raaxaysato kadibna waxay u imaanaysaa juubi oo kiyaala ay xirnayso kiyaala ay ka sii wuxuu leeyahay ooynaysa waana murugaysantaa maxaa kuugu dhacay waxba igu ma dhicnaa idheeysa wax walba iskiilo ay dheeyaa laabta ayuu nagelinaya wuxuu dhahay wax walba aniga ayaa ku ilowsinaa oo garabkaaga taagan mar walba naagtaasna waxba naga ma dhexay oo ku bariyaa maseer ayuu dhahay adiga ayaa xaaskayga mustaqbalka adigoo kaliya ayaan ku jecel aniga cid kale oo jeclaha haba yaraatee ma jirto iyadana ugu dambeyntii hadalkiisa ay qancaysaa wuuna farxad gelinaya kadibna caawiyiisa ay u wacaya wuxuuna dhahay waxaan u baahanahay naagta xunta inaan ka aarsado maadaama xaaskayga ay dhibaataysay indheedina ilin ay ka keentay kadibna xaflad ayuu qabanaya heelina meesha ay imaanaysaa xafladaasna waxay isku dayaysaa inay u soo dhawaato qol gooni ayuu keensanaya kaamiraamaano badanna waa u wacaya kadibna markay isku daydo inay u soo dhawaato wuxuu dhahay naagtan lacagteeda oo kaliya magacayga inay iga faa'iidaysata yarta wax walba inay u sameysay yarta aniga waliba nin gordho guursanaya ayaan ahay kadibna guriga ayuu imaanaya suubi oo wuxuu arkaya shaqo raadsanayso wuxuu dhahay shaqada maxaa ku falaysa iyadana waxa aniga nafteeda waxaan rabaa inaan horumar gaarsiiyo yaani lacagtaada oo kaliya inaan ku noolaado ma rabin asagana aad ayuu ugu farxaya kadibna wuxuu dhahay aniga wax walba leeyahay hor kuugu sheeg adiga ayaa iskale saas taa hadii aad shaqeynaysid waxaan ka codsanayaa shirkadeeda inaad ka shaqeyso maxaa yeelay shirkadeeda dahabka ay soo saartaa adigana dahabka si fiican ayaad u kala taqaana laakiin shirkada markay ay imaato dadka shaqaalaha oo dhan waa ay dhibaya maadaama wax shahaado aysan haysan hooyada ay u imaanaysaa si shahaadada ay uga codsato maadaama shahaado xumo lagu